السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب channel كيغا كحيران وإذن سلامي ما شاء الله وإيفي عنتينا نمالينا الحمد لله رب العالمين أنا وافي عنهاي أصحابي آذي أفرح سنة مانت إلهي أنه النبض إسكو كان سوعليه مرلوات سان أوريكورد قرينا باتوغي أنو دقي سنو باتوغي إن شيكاد الله مقع بحضي ديلكي فوش حما oo ku saabsanaa familkii Chris and Shannon Watts. Asxaabay waxaan maanta aan u mahad celinahay dadka cusub ee ugu soo biiray iyo dadka awal hore ila sii joogay. Maasha Allah tabarakallah aad iyo aad aan ku mahad celinayaa. Marka waxa waay asxaab badan ay ugu soo biirtay. Alxamdulillah alshukrullaah waan idin mahad celinayaa. Haddaan u sii gudgalno sheekadeeni waxay maraysay iyadoo laamaha amniga guriga imaadeen u soo yeertay gabadhii Shanaan saaxiibteed ahayd la dhahay Nicole Atkinson ayaa hal mar waxay u wada yeertay markay gabadha saaxiibadeed ay maalinta iyada ay weysay laamaha amniga iyo Chris Watts oo ninkii reerka lahaa hal mar u wada yeertay wicitaankeeda ka bacdi way imaadeen markay imaadeen gurigii laamaha amniga ahaa sidii oo shaqadooda ahayd gurigii ay waxay ku bilaabeen inay baaraan baaritaankii wax weyn ma ayna sii arkin wax shaki geliyana ma ay arkin waayo waxay arkeen gabadhii alaabaheedii oo iska fiican oo iska yaala gurigeena kama muuqanin meel rabsho iyo wax iyo buuq ay ka dhaceen kama muuqanin ilaa waxa ka maqnaa gabadhii iyo caruureedii ka maqnaa marka waxay arkeen boorsadeedii sidaan marka horeba videoga hore ku soo sheegnay oo furaheedii ugu dhex jiro waxa kale oo ay arkeen telefoonkeedii oo kuraasta korkooda saarnaa ilmihii kaasidkoodii iyo gaarigii oo sidiisa u fiican oo iska yaala adiga hataa macal eegi guriga joogay oo nabadiisa qabay arkeen balaayana may arkin adiga maalintaas ninkii waa la kaxeeyay wax weyn lama soo dhihin caadi interview yara la mari oo gabadh goormaa kuugu dambeysay waxaan asna wuxuu bilaabay inuu is ooyo marka oohinta maalinta waxaa ka dambeeyay sheeko dheer oo kale maalintaas horta wuxuu dhahay dadka laamaha amniga iyo dadkii wargeyska wixii oo dhan wuxuu ku dhahay oo magaalada wargeyska uu ku faafiyay ina Chris Watts cidiisa u baahan yahay reerkiisa islaantiisa iyo labadiis gabdhood u baahan yahay oo ninkaasna murugo badan ay ka muuqato saasa adi wargeyska u gashay oo newska u gashay oo meel walba saasa martay macnaha waxa ka muuqatay murug fara badan ninkiina wuxuu u ekaaday nin dhibaato badan ka muuqato oo asaga ilmihiisa iyo reerkiisa u baahan intii la warwareysanay ee laamaha amniga waxay u gudagaleen inay baaraan telefoonkiisa iyo telefoonkii gabadha kii guriga laga soo qaaday kiisaba waana xaqay u leeyihiin inay baaraan waa shaqadooda waaye adiga intay baaritaankii iyo wax markay sameeyeen lama wargelinin laakiin kii gabadha horta war fara badan aga soo baxay kiisana war laba war oo islaana ka soo baxday waanagii marka hore dhahnay soo ma ahayn gabadhaas social media caan ka ahayd Facebook iyo Snapchat meel walba waxay soo gelin jirtay familkeedii oo isku fiican familkeedu qurux badan ninkeedii oo qurux badan wax walba ay soo gelin jirtay taa maalintii uurka u sheegaysay June markii June la joogay ee waxay soo gelisay video oo tusaysa ina iyadii ninkeeda ay isku wanaagsan yihiin videogina oo ku faraxsan yahay aad macnaha isku faraxsan yihiin uurkii ay u sheegtay oo maalintaas baaritaankii ay ku soo ogaateen inuu aad ugu farxay waayahay ade uurkii haduu ku farxay telefoonkiisa waxa laga helay sheekooyin badan oo sheekadaas ka duwan marka maalintii aday maalmo ka bacdi ninkii waxa la geeyay interview weyn loo qaaday interview baaritaan xoog lahaa lagu qaaday dadkii markay ay sii maqan yihiin dhowr maalmood ayaa waxa la yiri ninkii isku soo diyaari kaalay soo fariiso bahal waxaa jirta la dhaha filmograph la dhaha oo magac kalena loogu yaqaano lies detectorki ayaa waxay soo saartay in ninkaanayto xaaladiisa ay macnaha tusaysa ay u badan tahay dhanka beenta kuma u guuleysanin waayo bahashaas waxay dadka ay ku suubisaa waxay baaraysaa qofka waxa la dhahaa body language indhaha sidoo ka dhigaya positionka uu fadhiyo habka asaga macnaha uu fadhiyo waxa kale ay baaraysaa
hadduu dhidid ka baxaayo oo waqtigaas uu dhididaayo kuleel hadduu jirin macnaha hadduu sheegaraynayo korkiisa gacmihiisa ee dhaqaaq nooc kale ay sameeyeen haddii macnaha uu codkiisa markuu hadlayo uu shaking geliyo u dhaho adi waxyaalahaas ay baaraysay marka ninkii wuxuu yiri aniga qof shoog galay oo cidiisa ka maqan tahay aan ahay bahashan haddii aan ku fail garay macnaha asna wuu dareemay inuu fail garay wuxuu codsaday in loogu soo celiyo mar uu ku guul daraystay mar labaadkii wuxuu dhahay bahashi lies detectorkii ha loogu soo celiyo ha loogu soo celiyo raali nusan ka nahay anaga diyaaran ku nahay inaan kugu soo celino dhag waa loogu soo celiyo sidii isi kasii daranbo bas markaas la yiri wariyaa bahashan waad ku fail garaysay meeshan anaga waxa nooga soo baxday inaad ka baxsaneen familgaada waxa ku dhacay ina adiga first suspect tahay after all qofka asaga first suspect qof markuu maqnaado oo la waayo oo guriga ama qof la dilo oo la arko qofka ugu agdhow haday naagta tahay ninkeeda ah oo la qabsanaa oo la dhaha waa first suspect marka ninka sida marka hore uu first suspect ku ahaa hadana bahashan way sii sheegtaba bas intii ninkan ay qayb ku maqan yihiin qaybta kale maxay soo ogaadeen gabadhi telefoonkeedii shanaan ahayd oo saaxiibteed ku sirqarsanayso wixii banaanka yaalaba waxba aan ka jirin wixii social media-ga ay naga dhex tusaysa waxba ka jirino cabaadkeedii calaacalkeedii meesha telefoonka ay leedahay walaalay aniga waxaa i haysta ninkan aniga asaga xiriirkaanagii guurkeygii ood ogtahay waqtiga is guursanay 2 carruur isku dhalnay haddana aan uur u leeyahay maba uu ku faraxsaneen maxay ahayd waxaasoo dhan ninkii aniga markaan baxay oo holiday aan aadnay June inta maqneen iyo July inta samarka markaan gurigii hooyaday aabahay iyo asaga cidoodii aan reerkoodii aan aadnay waxa waaye waxay tiri ninkii isbedel fara badan aan ka aragnay xaq inta maqneen nalamu u soo xiriirayna si fiican marka aan soo laabanay aan imaanana si fiican numa u soo dhaweynin aniga asaga dad isku fiican oo macnaha oo isqaba manhin hadda walaalaysan adiga sir badan ay soo sheegtay ninkii inuu ham badan u haynin inuu jecel badan u haynin ay soo sheegtay taas maxay ka dhiganta marka waa qodob meel yaal iyadana marka wuxuu codsaday Chris markii la dhahaniyo fara kugu maqan fara kugu jirta markii la dhahay wuxuu dhahay aniga marka haday saas tahay aabay hal iigeeyo hadda inaan wax aan sheega arabtaan kollay waa hadli say wax u jiraan ana idin sheeg karto aabay hal iigeeyo ayagoo la yaaban oo sharcigoodana taas ay ka duwan tahay qofka la rabo inuu iskarta horteeda laamnaha amniga hortooda wax walba uu ka sheego ay laakiin saacadaas iyada ay way u ogolaadeen waxay dhaheen bal let's just take this risk aninkan ungainable aabiisku uu codsanayo qolaa la wada geliyay aabiisa u soo fariistay markaas oo hinjabsaday Chris maxaa la oyni waay aabo aniga maanta bahashi oo beenta iyo runta kala saaraysay waan ku soo guul daraystay waan fail gareey bahashaas macnaha waan naxsanahay dadkan waxaanay afka uga sheegay inay aamin waayaan oo bahashaas ay aqaabteeda igu qaadaan oo dhahaniyo waxba fara kugu maqanaan ka baqaaya igu sii dhidhiradaan hadani adiga anay bal wax jira noo sheego yiri aabahay markaas yiri aabada runta ku sheeg ana habeenkii taariikh 13 habeenkeedii markay ay soo laabatay shanaan ay imaaday si fiican u seexnay dad faraxsan anagu ahaan seexnay laakiin waaga markuu bari ani wixii calooshayda ku jira aan u sheegay beentii dhan waa iska dhaafay sida aan rabaan u sheegay oo sida aan rabta maxay ahayd gabadhaas waan soo nacay waan u sheegay waxaan ku yiri walaashay kuma jecli anymore mideeda kale aniga way ka soo dhamaatay inaan ku furaan rabaa markaasay qaraacantay oo buuqday oo qaylisay igu dhaxday hadaad mar dambe dib dambe ilmahaada indhaa u seertid hadaad indha dambe labadii gabdhood aa seertid igu tiri waa warkaas maxaa ka dambeyn doona warkaas taas ma ahaan doonaa haye oo maxaa ku xiga waay marka anigoo arkay labadii gabdhood disho waay haye gabdhihii ay dishay gabdhihii meedkooda markaan arka ana ayadan dilay waan ku qariiray oo dilay waa dilay way dhimatay saas waaye aaw hadda meel heblaayaan ku soo aasay meesha waa xagee waa meeshan idin dhahay ninkan wuxuu ka shaqeeyaa shirkadda shidaalka u shaqeeyaa shirkadda shidaalkana important ay noo tahay markaan dhahayno waaye macno weyn ay noo sameynaysaa waxaa waa maxay laba arrinaa sheekada dhexdeeda ku jirto oo shirkaddu asaga u shaqeynaya ku saabsan mid waa meeshu ilmahan iyo hooyadood ku soo aasay waaye shirkadda ma fahamtay tan kalena hadda dhawaan sheegi doonaa marka shirkadii uu u shaqeynay shirkadda shidaalka u shaqeynay waxay lahayd ceelal
oo shidaalka lagu keydiyo oo ku yaala meel magaalada ka baxsan meeshii u qaaday islaantina dhulku wax yar intuu u faafagay qabri aan qabri sii weyn aan ahayn oo shaala uu saas ugu dhex tuuray ilmihiina labadiiba wuxuu ku riday ceelasha shidaalka oo meesha ku yaaleen waa sidoo markaas uu dhahay maqt waana sida iyada ah laakiin suu ku dilay saas aheen soo laabanayna telefoonkiisa aan ku soo laabana marka aabii saas markuu ku dhahay ninka waa la soo celiyay waa la keenay telefoonkiisa laamii amniga waxay kala kulmeen inuu xiriir lahaa xiriir uu la lahaa gabar la dhaho Nicole Kisinga ayada saaxiibteeda isla shaqeynayna maxaa la dhahaa Nicole Atkinson tanna waxaa la dhahaa Nicole Kisinga Nicole Kisinga waxay isku barteen shaqada meesha kaymaha warshada maxaa la dhahaa meeshan shidaalka ay ka wada shaqeeyaan shirkadan shidaalka ay u wada shaqeeyaan meeshii ay isku barteen macnaha ma ay is yaqaaneen meeshii xiriirkooda ka soo bilaabeen laba qof oo isla shaqeyso oo saaxiibo ahayd oo haddana xiriir qaas ay sii yeelatay noqdeen waa goorma markay yeeshteen bisha June reerkiisana goorma la waayna August marka gabadhii waxaa la keenay Nicole Kisinga ayaa la keenay waxaa la maleeyay gabadhan inay ku qalqaalisay macnaha suu asaga ka dhigay sheekada inay gabadhan naagtan iga hor leexi dhahday oo sheekada ka dhigay Nicole waa la keenay waxay tiri to start with sheekada bilowgeed aan ninkan horta waxaan isbarnay June 2018 kan xiriirkeenana wuxuu sii fogaaday July 2018 ayaa si dhab ah u soo jeclaanay laakiin wuxuu dhahay aniga igu soo xaragashtay inay asaga iyo naagtiisa ay isfurahayaan oo inay isku fiicneen oo divorce u socdo maxkamad u socoto oo divorce ah furitaan oo maxkamadda ay u taasho marka wuxuu dhahay aniga maxay ahayd naagtan waa isfuraynaa ee walaalay soo dhawaa ugu dhahay laakiin hadda gabadha markii la waayay sheekada waxaan maqlay in la leeyahay gabadha iyo labadeeda ilmoodna waa la waayay gabadhan xaamile ahayd uur ay ahayd 15 week uur ay lahayd marka waxa ii soo baxday ninkan inuu been sheegay isaga xaaskiisa divorce u soconin oo divorce ka hadda lay bilaabay ma fahamtay gabadhi markii la wareystay warkaas ay cadeysay gabadhina maxaa lagu hayay telefoonkeedii inaa xiriirkooda uu fiicneen waayahay adiga wax la joogi jiray oo maalmo badan ay ka soo wareegtay waxaa la gaaray waxay ahayd August September la gaaray September markii la gaaro intaas ramaanda ku jiro uu leeyahay naagtii baa ilmaha ku qariirtay oo marka ilmaha ku qariirtaan anigana iyada marka ilmaha iga dishaan dilay oo dilitaankii iyo keeskii uu nooc kale u egyahay oo dhowr jeer hadalkiisa bedelay wuxuu soo istaagay runta iska sheega aniga markaan waxa waaye gabadha habeenkaas markay ay soo hoyatay oo gabadha saaxiibteeda ay safarka iskala imaadeen baabuurkeeda ku soo qaaday ee guriga keentay saacadana ay ahayd labada habeenimo 2 am caadi baan u seexanay markaan seexanay aniga horta wuxuu yiri gabadhan uurka markay ii sheegtay uurka kuma aan faraxsaneen runta markaan sheego markay dhahday waa uura leeyahay waa ka fikri waxaan ogaaday uurkan inuu iga hor istaagay jaceelkayga cusub waxaa sameeyay 2 bilood dhan aan gabadhan sun aan kiskis u siinay aan u yaryareynay yar u siinay aniga qoftaan sun haye marka sunti way ku dhiman weysay waxa ugu talagalay macnaha ina ilmaha uga soo rido ayada ilmihii waxba kuma ay noqonin sunti kollay ilmahan aan ugu talagalay inay wax ku noqdaan way yara caajisto wax yara xanuunsatay gabadhan wax yar iska xanuunsatay suntiin waxba kuma ay noqonin ilmihiina kama soo dhicin ani waan fikri waaye marka inaan waxaan rabaa u sheego oo isfurno oon kala dhaqaajino laakiin waaga markuu bariyoon u sheego on dhahay aniga kuma rabo kuma jecli naag kalaan haystaa oo xiriir la leeyahay waanan guursani waanan naag heblaayo ee walaalay noloshayda ka bax iska kay dhaaf markaan dhahay ee buuq samaysay uu yiri buuqa markay samaysay ana waan qabto waa cinjiyo waan dilay ma samaysay gabadhaas dhaqaaq ma samayso ma iska ka celisaa la yiri waa la weydii wuxuu dhahay wax dhaqaaq ay samaysay ma leh qof bini aadan oo dhuunta la qabto la dilaa dhaqaaq ma samaynayo dhaqaaq ay samaysay ma leh defense ma ay samaynin iska ma kay celinin anna meeshaan kaga takhlusay waaga markuu si fiican u bari ilmaha gabadha weyneeda ay imaaday beela oo socoto
waxay aragtay naagtaan oo dhulka yeeshay aniga dhulkaasaan dhigo yiri sariirta waa kasoo dejiyay dhulkaan dhigay waan daboolay markaan daboolay inaan qaadaan rabay oon aan meel kusoo asa gabadha igu soo gaarto dhahay gabadhina waxay aragtay hooyadeedan dhaqaaq lahayn markaas ay weydiisay aaba hooye maxaa ku dhacay waxba kuma dhicin soo baxa labadiina ayar yiri marka labadoodii waan kaxeeyay gaarigan saaray meesha ani aan ka shaqeynayo waxaan tagnay waaye ceelasha ay ku leedahay shirkadda annada banaankeedan saan u tagnay banaanka markaan gaaray gaarigayaan furay waxaan sameeyey horta waxaan qoday god yaraan faagfaagay naagtii aan qabtay waan dhex dhigay waan ku duugay saasaan carrada ugu soo rogay gabdhihiina way yaabeen markaas ay weydiiyeen intay ooyeen ay dheen hooye maxaad meeshii dhulka u dhex gelinay maxaa tii yareedan ku booday waan qabtay neeftaan ku cabriyey waan cabriyey ceelaan ku dhex rido yiri oo shidaalka ceelkiisa oo meesha shaashada ugu jeedaan naagta qabrigeedana waa kaas meesha ka muuqdo oo markii laga soo bixiyana muuqdo ayida gabadha yareedna wuxuu ku dhex riday ceel shidaalo saas ugu dhex riday markaas tii oo yareeda oo meesha taagneed 40 sano jirto ka daba oynaysa walaasheed 3 jirkeed oo baaba why you killing Celeste why ayadana uu soo laabtay markuu soo laabtay yiri tan way argagaxdo way oysi baaba no iyadoo lehan qabto yiri ayadana waan cabriyey saasa iyada dhaneefta ugu celiyay meeshan dalaq ku sii dhahay iyadana labadoodaba waxaan ku duduubay yiri maday calana saas ugu duduubay meeshan ku riday bas sheekada waa laga dhageystay inuu asaga gacantiisa ku dilan ugu qirtay gabadha familkeeda hooyadeeda iyo aabaheed asaga hooyadiisa iyo aabiis iyo gabadha walaalkeedba way taagnaayeen waxay sameynayeen maleh way iska ooyeen hooyadeed gabadha waxay ku tiri waryaa gabadhan uurka ay ku lahaydna ma ku cafin wayso ma ku dayn wayso iyo labada carruurta ay ku haysay oo gabadhan jaceelkeeda maalin walba ay ku tusaysana ma ku cafin wayso haba ahaatee gabadhaada oo daraad heesta ogaanta ku heesaysana ma ku dayn waysay tiri oo heesta quruxda badneed gabadhaada ku qaadaysay yaa intaasay dhahday gabadha hooyadeed wayna oysay meeshana way ka tagtay calaa kulli xaal ninkii dilkii ugu qirtay waxaa la xiray cimri xerag ilaa iyo waxaa loogu kordaray 84 sano oo gooni ah oo extra ah oo marka cimrigiisa meesha ku dhamaysana ilaa iyo weligiis qisadan xagga inoogu dhamaatay wa calaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh like yaa hilmaamin subscribe yaa hilmaamin dadka cusubow hana la sheegaray comment qurux badan na soo qoro insha Allah waxa kale oo la keeni rabaa biidnillaahi kariim mar dhow routiinka iyo waxa soo gelin doona insha Allah iyo cuntada nafaqada oo healthy food insha Allah biidnillaahi kariim. Assalamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.